السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي meel kasta aad joogtaan kusoo dhawaada janalka Caynta Show. sidoo kale waxaan rabaa maanta waxaan martay inuu ah nin analyst ah oo dhanka siyaasadda ah Cabdisamed Usmaan wax kale kusoo dhawaada janalka Caynta Show. waxaan rabnaa marka barnaamijka hadda waxaan u talagalnay ogeysiis yar in uu jiro aan soo kordhinay aan sameynay janalka hadlaya kaliya siyaasadda Soomaaliya ama haddii ahayd siyaasadaha dibadda oo kale ama siyaasadaha bariga Afrika ama guud ahaan Afrika oo dhan. janalkaas waxa uu magacaabaa Catey Media. insha Allah description-ka waan soo dhigi doonaa inaad subscribe saartaan oo like ku soo dhaweysaan horta marka hore waan ka codsanayaa asxaabta ugu xiran. sidoo kale barnaamijyada si gaar ah waxay u bixi doonaan janalka Catey Media. sidoo kale janalka Caynta Show kala socon doontaan insha Allah. kusoo dhaw janalka Caynta Show. waa mahadsantahay walaalkay Caynte. dabcan waa mahadsantahay sida aad maaragtaa kanaalkaaga ama meeshaada aqalkaaga aad ugu martigelisay. waa mahadsantahay waana kaaga mahadcelinayaa sida maaragtaa sharafta leh milgaha leh hadii soo dhaweysay. waa mahadsantahay. waxaan rabaa maadaama hadda nin siyaasi aqoon-yahan oo dhanka siyaasadda aan la joogo analyst ah waxaan rabnaa fursadda inaan ka faa'iidaysano hal iyo laba maxaa ka dhigaya doorashada Soomaaliya hadda qaybaha baarlamaanka bilaabanaya maadaama aqalka sare laga soo gudbay. waa dabcan waa runta waa mahadsantahay mar kale. waxaa ummadda Soomaaliyeed ay wada ogtahay in maaragtaa aqalkii sare ama golaha shuyuukhda golaha loo yaqaano oo intiisii 99% uu soo gabagaboobay. waxa haray oo de muddadana u baahan waqtigana u baahan juhdiga faraha badan u baahan waa golaha shacabka ee ah waliba wakiilada sida qaaska ummadda Soomaaliyeed u matala ee la yiri xildhibaankii waxa soo dooranaya qofkiiba xildhibaan doonaya waxa soo dooranaya 101 qof waa inuu maaragtaa dadkaas kursigiiba waa inay dadkaas ay u kala garsooraan dadkaas kursiga maaragtaa haduu alla ku ruuyo ku tartami doono. dabcan waqti badan bay qaadan doontaa. waxaan rajeynayaa wax badan oo musuqmaasuq horena waa dhacay meelo far badan oo aqalka sare ahayd in maaragtaa lagu ceebeeyo dowlad goboleedyo qaarkood ee waxyaalo waliba sheeganayay sida Puntland oo kale. dabcan waa in la cadeeyaa inay maaragtaa dabcan afar maaragtaa nimanka la yiraahdo Puntland oo kale ay maaragtaa ku ayagoo de dhowr 20 sano jira ee sheeganayay in federaalkan oo ida federaalka ay tahay ay haddana u dhaqantay dabcan si aad u liidata halka hadii la barbar dhigo nimanka la yiraahdo Hirshabeelle ee si sharaf leh tartan furan karaama leh dimuqraadiyadii la yaqaanay ee aadan cadde ay soo bandhigeen 8 kursi ay madaxweynuhu ay Hirshabeelle yaalay gaar ahaan caasimadooda maaragtay Jowhar. waxa 8 xubnoodna loogu tartamay si furan oo daa furan oo musuqmaasuq aan lahayn maaragtaa oon cidna aan qalinka madaxweynuhu uusan ku hareyn ee dadka xildhibaanada ee baarlamaanka ama wakiilada reer Hirshabeelle ay soo kala saarayeen. marka fiiriso doorashadii hore iyo doorashada hadda sanadkan ee la qaban raba inkastoo madaxweyne Farmaajo ku adkeysanay inay cod iyo qof ay noqon doonto waan ahayd labada sano uu oleynay inay barnaamijkaas ku suurta gashay laakiin ay suurta gal weyso niman mucaarada ay barnaamijka hor istaageen. ma is leedahay ergada oo xiligan la joogo ee baarlamaanka dooranaya iyo ergadii sanadihii hore ama doorashooyinkii hore ma is leedahay ergadana xogaa yara adag oo tartan adag baa jira oo kii hore ka badan. dabcan dadka dhan ama ragga dadka u dhuunduleela maaragtaa doorashooyinka Soomaali loo qabto dabcan waa isku nooc hase ahaatee waxa uu dadku hadda la saadaalinayaa in musuqmaasuq intii ka bato si fiican laaluushka la kala qaadanayo ama fasahaadka la sameynayo lacageed in maaragtaa uu intii ka bato. dabcan lama gaari karo adaan ku watay lama gaari karo 101 qofood in la wada si siman in la loo siiyo haddana dadka qaarkood way awoodaan ama kuraasta qaar waxa la sameyn doonaa inay malaayiin ku baxdo. dabcan horeyna malaayiin ugu baxdo. ma kula tahay in dowladda shirsi ay ka qayb qaadanayaan sida dowladda Qatar oo kale dowladda Turkiga oo kale dowladda dariska ah Kenya Ethiopia ma is leedahay doorashada waa mid ay ku tartamayaan dowladda fara badan xitaa aan ka reebin oo ka tagin wadanka Mareykanka oo kale ilaa qodob walba adduunka ka jirta waxay isku dayaysaa maadaama geeska Afrika uu yahay marbiyad aad caali u ah ku taala baabmandab ma is leedahay dowladaha ku tartamaya siyaasi ma. dabcan waad ogtahay dhulkeena waa dhul istiraatiiji siyaasadeed istiraatiiji amni istiraatiiji dhaqaale istiraatiiji bulshadeed inta waynu nahay hase ahaatee dowladaha waa aad maaragtaa waa
kuwa waa la kala soocayaa oo dee isku si maaha, isku si loogama hadli karo. tusaale ahaan dhulalka wadamadan carabta qaliijka loo yaqaan nimankan walaalaha qaliijka iyo annaga faraha baan nagu haya haddaan mid u kala qaadno ama guud ahaanba Qatar iyo Sacuudiga iyo nimanka la yiraahdo Imaaraadba waa dabcan doorashooyinkii kuwii hadda dhacay, kuwa soo hadda dhici doona, kuwa madaxtinimada, kuwa dambe intaba waxay ku yeelan doonaan saameyn weyn oo muuqata horena way loogu yeeshay. waxaad aragtay iyadoo aan la kala qarsanayn laaluushka meel walba lagu kala bixinayo cid walba waa ogtahay in madaxweynuhuna hadduu alla kuurun yahay uu saanta ku hayo ama dhabarka ku hayo nimanka la yiraahdo nimankaas reer Qatar iyo hadduu alla kuurun yahay ragga inta kalena way iska caddahay iyaguna inay Imaaraad ay mar walba afeen yihiin ragga hadduu alla kuurun yahay. dabcan wadankan wuxuu leeyahay cadow fara badan, dad istiraatiijina waa nahay oo istiraatiijigaasna waa looga faa'iideysanaya. annagu annaga waxaan loo baahan yahay inaan dadka wixii qalad iyo fasahaad lacageed iyo corruption noo soo guurinaya inaan iska qabanno. kuwa kale ee dabcan walaalaha nahay sida walaalaheen Turki aan uga faa'iideysano sida ay tahay. annaga loo baahan yahay inaan hadba midka wanaagsanna aan soo xareysano, midka noo wanaagsanayna oo dulnimadeenna xordu ku aweeqay inaan iska celin. waa maasanta Cabdisamad. sidoo kale waxaan rajeynayaa in Cabdisamad barnaamijyo badan oo ogolaan doono kaasoo ku saabsan siyaasadda dalka Soomaaliya, doorashooyinka iyo guud ahaan bariga iyo bartamaha Afrika iyo Yurub siyaasadaha ka jira inaan ka wareysan doono. aad ugu mahadcelinaya marka la soo dhaweeyo channelkiisana subscribe hala saaraya hilmaamin. insha Allah waxaan rajeynayaa qaab asluubeysan oo aqoon ku dhisan oo na ka fog qabyaalad iyo aflagaado inuu u falaqeyn doono insha Allah siyaasadda dalka Soomaaliya. waana ka filan, waan rajeynaynaa waayo qofka aqoon-yahanka intaas ayaa laga filaa. waayo waxaa jira dad fara badan oo siyaasadda Soomaaliya ka hadlaya haddana qabiilku dabaqaya qofkaas lama dhihi karo siyaasad buu falaqeynaya ama dhaxal ayuu ka yahay. marka Cabdisamad waa maasantahay, soo dhawo mar kale. waxaan rabaa inaan asxaabtaada iyo adigaba isku goob idinkugu mahadceliyo. reer Caynta Show waad mahadsantihiin, kusoo dhawaada Catay Media. dabcan sida la idin sheegay goobtani waa goob lagu falanqeynayo ama lagu falanqeeyo siyaasadaha ama dhaqaalaha istiraatiijiyadeed ee caalamka ka jira ama bariga Afrika ha ahaato ama gobolkeena ha ahaato ama Afrika ha ahaato ama dunida carabta ama adduun weynahaas wax allaala wixii annaga saameyn nagu leh inaan falanqeyno. insha Allah waan isku dayi doonaa inta aan aan ka gaari karno. waa mahadsantihiin mar kale.